بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan duubaynaa cashirkanaga afraad ee barnaamijka aan hore usoo wadnay Microsoft Office Word. waxaan baranaynaa sida documenti loo save gareysto. Sidoo kale waxaan sii kala baranaynaa save iyo save as waxay kala yihiin. Save waxaa la yiraahdaa waa marka ugu horeysa ee documenti aad qoratay aad badbaadsanayso. Marqada markaad qorato waxaa qasab kugu ah inaad badbaadiso, markaas ayaa waxaa la dhahaa save asna waxaa la dhahaa in warqad kuu badbaadsanayd aad ka bedasho locationkii ama positionkii ay taalay oo aad meel kale u rarto. intaas ku saabsan yahay cashirkanaga. Hadduu Ilaahay yiraahdo wixii kale aan ku dari karaana waa arkaynaa hadduu Alla idmo. Haddii aan soo furno warqad waxaan sameynaynaa halkaan oo kale waxaan ku qorayaa waxa aan ahay arday iskuulka ku cusub. tusaale ahaan intaas oo kale markaan qorno markiiba waxaa qasab ah inaan intaan save gareyno ama aan badbaadsano. Si aan u save gareysano waxaan sameyn karnaa dhowr nooc aan sameyn karnaa. marka ugu horeysa inaad halkaa file intaad tagto kadib aad halkaan ka doorato save. marka horeysa saa waa sameyn kartaa oo halkaa save hadaad file hadaad tiraahdo waa kuwaana save iyo save as halkaan waa ka heleysaa. sidoo kale waxaad ku save gareysan kartaa inaad carabkan yarka intaa furto halkaan iyadana save waa tana halkaan ay taalaa. carabkan waxaa la dhahaa quick access toolbar ayaa la dhahaa. haddii aad soo furto waa kuwaana dhammaan way ku jiraan. save-na waa tana halkaan ay taalaa, halkaas waa ka save gareysan kartaa. sidoo kale inta calaamadan haddii aad ku dhufato waa save iyadana ku save gareysanaya warqadda. sidoo kale waxaad ku save gareyn kartaa control s inaad taabato. haddii aad control s yacni aad control iyo s isla qabato sidoo kale waa ku save gareysanaysaa. marka hadda file baan tegaynaa kadibna save ayaan dhahaynaa. save waa marka ugu horeysa warqaddii aad qoratay aad badbaadsanayso. halkaan ayaa lagu keenayaa. halkaan waxaad ka qabanaysaa shaqada ah inaad filekaas meel dhigato. halkaan oo kale haddii aad browserkan furto waad yeeli kartaa, ama this pc inaad furto waad yeeli kartaa. marka browserkan aan furaynaa. markaan furno halkaan uu keenayaa. hadduu Ilaahay yiraahdo halkaan ayaan ka dooranaynaa marka meeshaan dhigayno. hadda documents ayuu noo dooran. waad dooran kartaa, pictures baad dooran kartaa. marka hadda ani waxaan dooranayaa desktop-ka halkaas, yacni banaanka kore ee daaqadda kore ee computerka. halkaan markaad soo doorato halkaan waxaa lagu leeyahay magac u bixi. file name waa magac u bixi filekaaga. marka waxaan ku qorayaa arday cusub. waxaana soo doortay uu ii dhigi doonaa desktop-ka ayuu ii dhigi doonaa. kadib save ayaan dhahayaa, wuxuuna toos u dhigayaa desktop-ka. hadda haddii aan fiirino desktop-kanaga waxaa arkaysaa arday cusub inuu halkaan yaallo. halkaan ayuu noo soo dhigay. isla warqadan ayaan furayaa kadibna save as ayaan dhahayaa. save as sida badan inta badan waxay u shaqeysaa sida copy oo kaleeto, sida warqad copy oo kaleeto ayay u shaqeysaa, inaad warqadda copy-yeysato oo kaleeto. marka saan markay usoo furanto file ayaan tegaynaa kadib save as ayaan dhahaynaa. markaan sida hadaayad oo kale ayaa haddana juice waxaa lagu siiyey option ah inaad meeshii aad dhigan lahayd aad doorato. hadda tii hadaayad desktop-kan dhigay, midaan browserkan furaynaa. waxaan ka dooranaynaa music meeshaas ay ku qoran tahay. magaca haddaan rabno waa bedeli karnaa, haddaan rabna sidiisa u daynaynaa, waxma bedelayno. save baan dhahaynaa kadibna warqadaas ayadoo waxba aan kaga bedelnayn warqaddii hore ee desktop-ka noo taal ayaa waxay taalaa mar kale meesha music-ka. this pc aan tegaynaa kadibna music ayaan furaynaa. waxaan fiirinaynaa inay taallo iyo in kale. waatana warqaddii arday cusub oo halkaas ayay taalaa. marka waxaan rabaa inaan ku noqdo warqadan arday
haddii aad isku daydo inaad wax ka beddesho. Hadda waxa aan ahay arday iskuulka ku cusub, waxaana joogaa maalmo dhow oo kale haddaad ku darto warqaddan qoraalkan dambe ayuu safgaraynayaa, kii horena qoraalkii hore ma arkaysid. Waxaan ahay arday iskuulka ku cusub, waxaana joogaa maalmo yar. Tusaale haddaan intaa ku darno oo tiraahdo soo xir, wuxuu ku leeyahay safgaray warqaddan. Isla meeshii desktop-ka ayay taallaa. Intaan ayaana lagu soo kordhiyay oo qoraalkii hore meesha waa ka baxayaa. Yacni intaan maadaama ay kusoo kororto, marka hore halkan wuxuu noogu joogay waxaan ahay arday iskuulka ku cusub. Warqaddii hore inta noo safgaraysan intaas ayay ahayd. Maadaama aan intaan ku darnay, waxaana joogaa maalmo yar. Maadaama aan ku darnay, midaan cusub ayaa la koobiyeynayaa, tii horena meesha way ka baxaysaa. Hadda haddaad dhahdo bal inaad soo xirto isku daydo, wuxuu ku leeyahay safgaray warqaddan. Marka inaad safgarayso way yeeli kartaa. Haddaad dhahdo don't save, haddaad dhahdo qoraalka intaada hore ayuu ahaanayaa. Laakiin save haddaad dhahdo, warqaddan cusub ee aad wax ku dartay ayaa la safgaraynayaa oo la qaadanayaa. Marka waa safgaraynaynaa. Haddii aan xirno arday cusub aan soo furno, waxaa arkaysaa in qoraalkii uu ku soo kordhay qoraal kaleeto intii marka hore uu ka badan yahay. Oona waxaa la qaatay marka qoraalkii dambe cusbaa ayaa la qaatay, kii horena saasa looga tagayaa. Mar walbo ood warqadda editing ku samayso, wixii aad edit garaysay ayaa la safgaraynayaa. Wixii aad ama ka tagtay ama aad meesha ka saartayna sidaas ayay uga maqnaanayaan. Hadda sidaa aragto waatanaa warqaddii sidan ayay u samaysan tahay oo qoraalkii dambe ayay safgareeyeen. Marka save iyo save as waxay ku kala duwan yihiin. Save as waa warqaddii inaad mar kaleento aad meel kale u rarto ama position kale aad geyso ayadoo aan waxba iska beddelin. Save na waxa weeye marka ugu horreysa documenti ama warqad aad la soo baxdo ood qorato sida aad u badbaadsanayso ayaa save ay tahay.